dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ka warbixisay qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. qaraxan oo la sheegay inuu ahaa qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa waxaa lagu weeraray maqaayadda Luul Yamani oo ku taala iridda laga galo xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in ruuxa isku soo xiray waxyaabaha qarxa ay albaabka ka celiyeen ilaalada maqaayadda ha yeeshee uu isqarxiyay waxaana ka dhashay dhimashada labada ka mid ahaa ilaalada iyo qofkii isqarxiyay. ciidamo ka tirsan booliska iyo kuwa asluubta oo goobta ka ag dhawaa ayaa waxay u diideen warbaahinta in ay halkaasi galaan balse markii dambe waa loo ogolaaday. afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Cali Duudishe ayaa waxa uu sheegay in ruuxa isqarxiyay uu doonayay in uu gudaha u galo maqaayadda balse ay u diideen ilaalada isla markaana uu banaanka maqaayadda isku qarxiyay. degmada Xamar Shabeelle gobolka Banaadir maantay abaara 7 iyo qadar 30 daqiiqo ah ayaa qof ismiidaamiye ah oo ka tirsan qolyaha argagixisada ah ayuu wuxuu isku qarxiyay maqaayad la yiraahdo Luul Yamani oo ku taala degmada Xamar Jajab. ujeedka isqarxiyaha ayaa ah inuu gudaha u galo isla markaana sida aan ku baranay argagixisadu ay qasaaraha kordhiyaan oo dad badan dhibaateeyaan. falilaahi alxamdu waardiyihii maqaayadda ka shaqeynayay oo aad u feejignaa ayaa u diiday inuu gudaha galo iska caabin kadib isqarxiyihii wuxuu isku dayay inuu gudaha galo way iska celiyeen. meeshaas ayaa qaraxii ka dhacay iridda hore maqaayadda sida u jeedaan gudaha uma uusan gelin. halkaasna qasaara waxaa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac leh. waxaa ku dhintay 3 qof iyo 2 kale oo dhaawac ah. saddexda dhimashada ah waa ismiidaamiyihii ama naftahaligihii iyo 2 ka tirsanaa waardiyihii maqaayadda. waxaana ku dhaawacmay 2 qof oo kaleeto oo goobta ka ag dhawaa. wax qasaara ma aysan gaarin dadkii gudaha ku jiray. halkaas ayaanan qasaaraha maanta uu ku ekaaday. sida kale ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo dhammaan ciidamada kale ee qalabka sida Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxaan heegan buuxa ugu jirnaa in aanu ka hortagno yareyno falalka argagixisadu ay markasta u qorsheynayso in dadkeena gaarsiiyaan. waa mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi. Cabdiqaadir Carab Cumar, Banaadir TV, Muqdisho.